Bismillahirrahmanirrahiim. Kulan habboon daawadayaal. Idil ahaantiinba soo dhawaada marka ugu horeysa. Waxaan rabaa laba arrimood inaan idinla wadaago oo ku saabsan xaaladda bariga dhexe, colaadaha sokeeye ee waqtiga halkan ka taagan, saameynta ay yeelan karaan bariga dhexe in heshiis la gaaro waa la diiday. Marka kani colaad ayay u jeesteen dhammaantoodba. Waxay kulligoodba ay ku ballansan yihiin in gebi ahaanba marxaladaha ugu duwan ee bariga dhexe saameyn ay ku yeelan karto. Mareykanka waa uu cadeystay oo weliba qorshihiisa waa uu sheegay in uusan marnaba aqbalaynin xabad joojinta. Iiraan sidoo kale way diiday, laakiin hubkii uu cuslaaya marka kani labadaba banaanka ay soo dhigeen oo weliba u muuqato in midba midka kale muddooyinkooda aad u soo xoogeysanayo. Intaas raba inaan daqiiqada idinkugu soo koobo 1 iyo 2 daqiiqo. Saaxiibayaal oo codsi waaye channelkan subscribe hortaan noo saaro. 15kii ugu horreeyay Ramadaan waxaan gaarnay 1200 ilaa 1300 inta u dhaxayso. Laakiin 15kan dambe ma aqaano dadka si ay nooga dhaceen. Ma xoogay aan soo gudbinaynaa daleeshan commentigna uu soo qor wax walba bedelana dhahdeen waa bedelayna. Bal subscribe hana loo saaro bal insha Allah. Waagaag soo dhawaada like tar meel dheer bayna gaarsinaysaa hay naga hagranina. Haddii aan ku bilaabo ninkii Trump ahaa wuxuu banaanka keenay diyaarado oo aan horey loo arkin. Sidoo kale dabcan Iiraan qudheeda ma aysan yareysanin waxay yana banaanka soo dhigtay hubkii ugu cuslaa, laakiin kaadmada ugu culus ee Trump ku dhacday wallahi waa la yaabay. Ninkii Trump ahaa meel ebru bambo bazuukaashiisii iyo gantaaladiisu ku qaraaca ka waran. Iiraan waaba aqliyogiyo miiran oo socdo. Aqligeeda cid gaari karta habiraatee ma jirto ka waran. Meel ebru inta sawir u saartay bay dabcan Mareykanku iska duqeynay. Waqtigan lagu leeyahay Mareykanka meeluhu ay dhanbo oo qarxidii wax uu ku hay dhanbo waa meel iska ibra. Waa waxyaabaha la yaab kale oo cajiibka ah. Marka ninkii Iiraan xulfadeeda way ka guuleystay baa la oran karaa dabcan marka si loo eego Mareykankana marxalada culus oo waqtigan wajahaya. Sidoo kale talaabooyinka bariga dhexe saameyn xoogan ay yeelanayaan muddooyinka ugu dambeeyay insha Allah. Vision cusub aan rabnaa inaan kullu idinku soo kordhino hadii la yiraahdo muuqaalada wajigeena insha Allah si toos ah. Saaxiibayaal bal garab qabta Soomaaliya garab qaban kartaa, ma garab qabta. Sanidin